السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. waxaa dhici karta inaad marar badan aragtay dad cidiyaha dheeraysta ama cidiyaha la baxa. haddaba arrinta ku saabsan in cidiyaha lala baxo ama cidiyaha la dheeraysto waxay asalkeedii hore ka timid waddanka China. xilliyadan dambena meelo badan oo adduunka ka mid ah waxaa ka jira in cidiyaha lala baxo ama cidiyaha la dheeraysto, waxaana dhici karta inay dadka qaarkood ka dhigtaan qurux inay cidiyaha la baxaan. haddaba in cidiyaha la dheeraysto ama cidiyaha lala baxo diinteena islaamku way noo diiday sababahan awgood. waa ta koobaad in qofku cidiyaha dheeraystaa waxay keeni kartaa inay cidiyahaasi usoo jiidaan jeermiska iyo bakteeriyada, gaar ahaan xilliga uu cuntada cunayo. waxaa kaloo diinteenu inoogu diiday in cidiyaha lala baxo iyadoo la diidayo in qofka islaamka ahi isu ekaysiiyo dadka aan islaamka ahayn, iyo in qofka islaamka ahi isu ekaysiiyo xayawaanka. waxaa kaloo dhici karta qofka cidiyaha dheeraystaa inuu ku dhaawaco ilmaha aadka u yaryar xilliga uu xanaanaynayo ama uu hayo isagoo aan dareensanayn. wax kasta oo diinteena islaamku inoo diidayna waa wax dhib inoola aakhire iyo adduunba. wax kasta oo diinteena islaamku ina farta inaynu samaynaana waa wax ina anfacaya aakhire iyo adduunba. ilaahayna dariiqa saxda ah ina waafajiyo. waad mahadsantihiin.